waa tuma Cayuuni halkay ku dhalatay Cayuuni goorma la bartay Cayuuni maxaa caan ka dhigay Cayuuni qodobadaas aynu barnaamijkeena ku daaqaadi doonaa ha yeeshee daawada intayna barnaamijka guda galin hadda channelkan ku cusub tahayna subscribe saar asxaabtaada la wadaag kusoo dhawaada barnaamij sanadii 1994 dabayaaqadeedii ayay ku dhalatay degmada Ceelbu ee bariga gobolka Sanaag halkaasi ay waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe ay ku soo qaadatay isla degmadaasi Ceelbu ee bariga gobolka Sanaag sanadii 2014 ayay baxday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya hayeeshee sanadii 2015 ayay ku laabatay ama ay aaday safar u aaday magaalada Nairobi ee xarunta wadankaasi Kenya halkaas oo in muddo ay ku noolayd bartamihii sanadkii 2018 ayay ku laabatay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxayna halkaasi ka bilowday waxbarasho gaar ahaan nursing oo ay ka baranaysay jaamacad ku taala magaalada Muqdisho Cayni Maxamed Axmed oo ku magac dheer Cayni Qurux waxay horaantii sanadkii 2019 ay ku soo biirtay aaladda TikTok oo markaa ahayd aalad isticmaalkeedu aad ugu badan yahay guud ahaan qaaradda Afrika Cayni Maxamed Axmed oo ku magac dheer Cayni Qurux horaantii isbuucan ayay ahayd markii caanimadeedu ay sii laba jibaarantay kadib markii fiideo si khalada uu saaxiibkeedii hore uga duubay oo uu ku faafiyay baraha bulshada sida Facebook waana ta keentay in guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed aad uga qayliyaan ayna aad uga falceliyaan fiideogaasi lagu faafiyay baraha bulshada balse fiideogan ayaa keenay inay noqoto gabadha ugu caansan marka laga hadlayo jiilka dambe xilligan ee ku jira aaladda social media gaar ahaan TikTok caanimadeeda ayaa markii hore ku ekeyd aaladda TikTok balse hadda waxay noqotay gabadh caan ka guud ahaanba social media Cayni Maxamed Axmed oo ku magac dheer Cayni Qurux waxay hadda ku nooshahay magaalada Muqdisho caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya halkaas oo waxbarashadeedii caafimaadka ay kaga jirto gaar ahaan waxbarashada nursingka haddaba daawada Cayni Qurux ayaa qoraal ay soo dhigtay habeen hore waxay ku sheegtay in fiideogii laga baaxiyay ugu dambeyn doonto family-geeda waxay ka dhahayaan aanana ka hor dhici doonin waaniga Maxamed